munaasabadan oo ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Baxdo mudane Yuusuf Cali Khayre iyo gudoomiyaha cusub ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa ka dhacday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud. munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Baxdo mudane Yuusuf Cali Khayre waxa uuna bogaadin dheer iyo talo siiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Baxdo mudane Maxamed Cabdullaahi Muuse oo ah gudoomiyaha maanta xilka la wareegay. gudoomiyihii hore ee degmada Baxdo mudane Yuusuf Cali Khayre ayaa dawladda hoose ku amray in ay la shaqeeyaan maamulka cusub. maanta oo taariikhdu ay tahay 20 bishii 12aad ayaantuna ay tahay axad saacaduna ay tahay 5 saac iyo 25 daqiiqo waxaan halkaan rabaa inaan ku wareejiyo xilkii gudoomiyaha aan soo qabtay xilliga ximan iyo xeeb inta kala aan shaqaynayay gudoomiyaha cusub madaxweynaha Galmudug uu soo magacaabay mudane Maxamed Cabdullaahi Muuse in aan ku wareejiyo degmada Baxdo gudoomiyaheeda ayaan u soo fariistay laga bilaabo saacadan waa ku wareejiyay isaga gudoomiyaha wala shaqayn doona madaxweynaha Galmudug laga soo bilaabo ilaa wasaaradaha maaliyadda dowladda ha ahaato wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose amniga mid kastoo taa wasaaradaha dowladda waxaan leeyahay aan federaalka ahaadeen galmudug ka ahaadeen maamulka yaa looga haray waa la magacaabay waxaan leeyahay maamulka la shaqeeyo hala taabageliyo hadday tahay xaq dhaqaalood iyo hadday tahay xaq abni iyo hadday tahay xaq talo iyo hadday tahay xaq waxa toosineed wax aan marjac loo laabto lahayn waxba tarayaan waxaan ku boorinayaa oo tartaamaya in la shaqeeysan maamulka si buuxda hay'adaha dhamaantood ay la shaqeeyaan. sidoo kale gudoomiyaha cusub ayaa u mahad celiyay gudoomiyihii hore ee maanta xilka ku wareejiyay iyo sida fudud ee uu xilka ugu wareejiyay. waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha hore degmada Baxdo gudoomiyihii hore degmada Baxdo Yuusuf Cali Khayre oo xilkii uu muddo soo hayay oo anagoo shacab aan kula shaqaynaynay ii gartay maanta inuu ugu wareejiyo xilkaas aadaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha. waxaan leeyahay gudoomiye aad iyo aad badan mahadsan tahay waxaad soo martay waqti runtii aan dareensannahay oo aad iyo aad u dhib badan oo culays badnaa dadku aysan ilbax ahayn oo shaqada aysan aad maaragtay aysan ilbax ugu ahayn insha Allah taala waxaan rajaynaynaa annagana waa xil aad iyo aad culays badan aan ognahay intuu canaabtiisa culaysku leeyahay insha Allah taala waxaan ku sheegaynaa annaguna degmada inaan ugu shaqeyn doono si daacada oo hufnaan iyo karti ay ku jirto xilka soo siday muddadaas inaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa raadkaaga aan ceeb ka imaan adigu waartay waqtigaaga waad soo gudatay waana soo martay innaguna insha Allah sidaas oo kale rajaynaynaa bi idin Allah taala ilaahina nagu maaragtay asturo amaasiti Ali Daahir Maxamed Axmed xafiiska warfaafinta dawladda hoose ee degmada Baxdo.